soo dhawaada sheeko waalan haddaa maqasheen waatan oo kale duqdaana u jeediin gabadhan iyo wiilkan iyadaa dhashay habeene intii isa soo raaceen waxay yimaadeen maqaayadan iyagoo maqaayada jooga waxaa u imaanaya midkan Chris lagu magacaabo isla markiina hooyadoodu shikilay ku bilaaba kuwana waa yaabiyihiin iyadana ma qasna waxay taagantaa ninkan iska barta ninkan ii sheegayo waaye wiilkeedana markuu hadalkaas hooyadiis ka maqla midkii Chris la dhahayo wuxuu ku dhahaa Janice man sii kartaa waxa rabnaa in hooyadeen la hadalnee isna ma ka diidayo Janice ay ka codsadeen wuu ka ogolaanaa woon isaga tagaa kadib hooyadoodu waxay ku dhahayaan adiga ma waalantahay waxa shukaansanaysaa cunuga saddex jeer dhali karto waxay u sheegeen in aysan shukaansaneen taas bedelkeeda ay guursanayso intaasna waxay u raacsiinayaan in ay iyagu cilaayeen ninkaana ay ula joogtay inay kelinimada isaga ilaaliso idinka 3 sano markii la joogaa hal mar ii timaadeen anigana intaas cilama ahaa kari qof ila joogaan u baahanahay marka iyada oo aanan hadalkooda dhageysana meeshii isaga tagay subaxdii markii la gaaray maamada guriga lagu soo gargaraaca markii ay furtana waxay arkeen inay kuwii ay dhashay yihiin waxayna weydiinayeen maxaa rabteen labadiina waxay ku dhahayaan waxa meeshan u nimaanay inaan ku raali gelino midkaana haduu yahay go'aan sax oo adiga qaadatay waa kugu raacsanahay iyadana markii hadalkaas ilmaheeda ka maqasho way ku farxeen waxayna u sheegay inay gudaha soo galaan gabadheeda waxay weydiinayeen marka saaxiibka Chris aaway waxa rabnaa isagana inaan raali gelinay qof la sheesheega ma dheer isla markii uu imaana isagoo alaab banaanka ka keenay wiilkeeda Chris wuxuu weydiinaa maxaa qabataa laakiin hooyadiisa ugu jawaabay waxay dhehaysaa waa sawiray kala kacsan waxayna tusay sawir darbiga suran oo kamid ah sawiradii oo hore u sawiray kuwan iyagoo sawirkii daawanaya ayaa midkii Chris ah saaxiibadiis wuxuu weydiisanaa xogaa lacag ma haysaa iyadana way soo bixinay midkan markii uu lacagta qaato wiilka iyo gabadha ay duqdu dhashay waxay ogaanayaan midkan inuu duqda lacag leh inuu ka qaato ula joogo oosan wax kale ula joogin waxay go'aansanayaan inay iska baxaan ay gurigeeda aadaan laakiin waxay arkayaan midkii Chris ahay oo lacagtii uu duqda ka soo qaatay gabar kale siinayo gabadha ay duqdu dhashay way gacmo fududahay isla markii telefoon soo qaadanay sawireena ka qaaday dibeyna gudaha ugu laabanayaan si ay hooyadeed u soo tusaan duqda oo isku diyaarisay inay banaanka aado ay sawirkii tusinayaan iyadana waatana way soo dhaweynay waxay taagantaa marka midaan dhib malaha waa in adeertiisa Emma wiilkeedana wuxuu u sheegay ninkaas wax uu sameeyay in adeer lagu sameeyay isla markiina duqda qaylay ku bilaabay waxay dhehaysaa waxaan maxay igu sameeyeen farxadeeda ma ka xuntiin laakiin gabadheeda waxay ku dhehaysaa waxaan ka codsanaynaa inaa hal wax inoo sameeysid waxaasna haday shaqay waayaan waxaan ka ballan qaadaynaa inaan mardam idin soo dhaxgali doonin waxay weydiinayeen marka maxaad rabtiin inaa idin sameeyo labadooda isku ballaminayaan kadib midkii Chris ayaa duqda wuxuu ku dhahaa biri waxa aadina jasiirada ku yaala Gariiga laakiin iyada ma la hadlayso markii uu sababta weydiiyeen waxay ku dhaheen wax ayaa rabaa inaa kuu sheego wuxuu weydiinaa maxaa waaye waxaas waxayna ugu jawaabaysaa ma awoodo inaa aado jasiiradahaas ku yaala Gariiga sababtana wax kale ma ahan ee wixii aan lacag haysto dhan adiga kuu qasaariye anigana lacag ma haysto marka adiga markaagii waaye lacagta inaa bixisaa laga rabaa intuu soo istaago duqda ku xanaaqa wuxuuna dhahaa sidee ku awoodo inaa ii sheegto been intaas leeg ma is weydiisa qof dhalinyaro sida anigoo kale sababta ula joogi karo qof waa yeela sida adigoo kale duqda wiilkeeda intuu yimaado wuxuu ku dhahaa hadda waa inaa banaanka u baxdaa isaguna wuxuu taagan yahay ma aamini karo inaa adiga 3 bilood kugu qasaariyay kadib isagoo xanaaqsan oo cusbada ku kaacsanto oo meeshii isaga tagaa duqda hadeero miirkeeda soo laabtay waxay taagan tahay ma aamini kari inaa doqonnimo intaas la egsamay aniga waxaan diidaya kelinimada haddana kelinimadeedii la dib ugu laabana laakiin gabadheeda niyada u dhisaysa waxayna ku dhehaysaa looma baahna hadda kadib inaa kelinimo ka cabsato aniga iyo walaalkay waxaan go'aan ku gaarnay hadda inaa soo baxdo oo inaga inala noolaato iyaduna hadalkaas markii ilmaheeda ka maqasho aad ay ugu farxeen subaxdii dambe way soo baxayaan duqda alaabteedii u soo qaadayaan si ay gurigooda u geeyaan kadib nin duq ah oo dariskooda ah arkayo wuxuuna gabadhii ku dhahaa midaan hooyada ay sheegaysaa gabadhuna isla markii waxay meesha isku bareen ninkii dariskooda ahay iyo hooyadooda midka dariskaana duqdiyo shikilay ku bilaaba iyadana markaan go'aan iska qaadanayso ilmaheedii la tashanaysaa iyagana midkaan way ku raacayaan maadaama ay isku da'yihiin muuqaalkan intaan ku ekay hadda halkaas soo gaarta leeg noo saar soo dhawaada gabadhan kalkaaliso waaye iyada iyo ninkii isla socday waxay arkayaan in wadada yaalo dad badan agtaa taagan yihiin kadib gabadhii waxay ku dhahayaan adiga dhakhtarada haddii aan naga runtahay kaalin ninkan caawi asaga dhan ma neefsanooye markii ay isku dayday inay caawido ninkeeda intuu celiyo wuxuu u sheegay inaysan midaan shaqadooda ahayn waxay ku dhehaysaa laakiin arrintaas si fiican aniga u aqaanay ninkan wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo gargaarka degdega dadkiina waxay ku qaylinayaan gabadha ma soo diidid laakiin wuxuu ku dhahaa ambalaas oo wacday xaaskiga arrintaa waxba kama qaban karto laakiin isla markaas intay ka soo baxsatay ninka dhinaciisa u soo orday isagana waa kana maadaama uusan aqoon sida camal in isku caawiyo maskaxdiisa wax qaldan u sheegay midkii suuxsanaa markii uu soo kacana midkan xaaskiisa intuu soo qabtay wuxuu sheegay wixii qaldanaayo ninka ku sameeyay inuu kala xisaabtami doono midkan waxa loo sheegay inay gabar caawisay laakiin midkood timo dheer oo la socdo uu diiday in la asiga la caawiyo markii uu isku dayay inuu istaago lug inuu ka jaban yahay arka dhinaca kale kuwan gurigoodii markii ay tagaan midka wuxuu bilaabay inuu xaaskiisa ku qayliyo isagoo ku dhahay maanta dad badan meel joogaan hadalkii ku maqli weysa waa ceebeysay qayli kaliya ma uu keenayay xadgudubyo kale u geysana midkii suuxsanaa isbitaalka markii la keenay dhakhtarku wuxuu u sheegay inuu lug ka jabay sidaas darteed intii uu ka caafimaadayo isbitaalkan ku jiri doono 6 bilood
kadib anigu waxaan ogaanaynaa midka lugta ka jabay inuu dhakhtar yahay dhakhtarkan daaweynayana ay saaxiibo yihiin dhakhtarka wuxuu ku dhahaa gabadha ku badbaadisay isbitaalka inay ka shaqeydaan laakiin iyadoo dhakhtar maahane waa kalkaaliso maadaama ay ku badbaadisana waa inaad u mahadcelisaa aniguna shaqada 6 bilood soconaysa iyada u dhiiba markii uu dhakhtarku baxo xoogaa kadib baatana iyadu waa timaatay xoogaa ay isla hadlayeen kadib wuxuu arkay gabadha wejigeeda inay dhaawacyo waaweyn ku yaalaan wuxuu weydiinaa midkii la sheegayo timaha dheedheeraa ee sidaan ku gala soo maahan laakiin iyadu ma jawaabaysay waxay bilaabaysaa inay shaqadeedii hore u gasho shaqadeeda maalintaas markii ay dhamaatana gurigeedii dib ugu soo laabatay midkan wuxuu taagan yahay waxaad ka timaada shaqo ka weyn maxaa waaye shaqada saacadan laga imaanayo maanta kadib waxaan kaa rabaa shaqada ka shaqeeyay inaad iska soo fasaxdid sababtoo anaa shaqo kala kacsan ku haayo waxay ku dhehaysaa arrinta ka sheekeynid macquul maahan sababtoo gurigan wax kastoo ku baxay aniga bixiyo ka bilow kirida guriga korontada biyaha iyo internetka wax walba shaqadeedii ku xiran yihiin waana ogtahay inaad adigu shaqaysan oo aad arrinta aniga igu diiday laakiin midkan hadalkiisa markii uu ku adkaysaday waxay u sheegaysaa in hadda baxeedo shaqada iska soo kasalayso shaqadeedii kalkaalisanimada markay dib ugu soo laabatay midkan wuxuu ku dhahaa anigu waxaa jecelahay inaan macallin noqdo riyadayda ugu weynna waxa waaye inaan jaamacad professor ka noqdo dadka caafimaadka baro iyaduna markeedii arrinteeda uga sheekeene waxay ku dhahay anigu waxaan rabay inaan dhakhtarad noqdo laakiin maadaama aan lacagta bixi waayo waxaan iska go'aansaday inaan kalkaaliso noqdo sidaas haday tahay inuu isagu qorshe u haayo wuxuu ku dhahaa waxaa jira barnaamij sida ardada adigoo kale si free ah ku qaadanayo barnaamijkaasna ma la iska galay imtixaan aad u adag la maraa aniguna waxaan diyaar u ahaa inaan ku baro casharada aad imtixaankaas ku geli lahayd diyaar ma u tahay arrintan hadalkaas markii ay ka maqasho waxay u farxaysaa sida inay sugayso in hal mar lee lagu dhaho guriga markii ay ku soo laabatay ninkeeda waxay ku dhahaysaa wixii aan dhahdaa sameeyay shaqadana maanta waa iska soo kansalay kadib wuxuu u sheegay arrintu inay fududahay oo aysan ahayn wax adag isla subaxdii xigtay waxay isku diyaareen inay rootigan wadada ku soo iibido maadaama ay tahay shaqadan midii uu asigu u soo jeediyay markii ay guriga ka soo baxday rooti ma iibinaysay si toos ah bukaankeedii ugu imaatay iyadoo iska bedeshay dharkii rootilo ku bedelatay dharkii kalkaalisada midkan hore wuxuu ka bilaabay inuu gabadha siiyo casharadii ay ugu gudbi lahayd imtixaanka muddadii 6 bilood ahayd midaan mar waxay baranayeen marna waxay wadatay shaqadeedii kalkaalisada arrintaas waxay waday ilaa ugu dambeyn waqtiga uu iscuna 6 biloodna ay dhamaatay midkan lugtiisa way u caafimaaday halka iyadu imtixaankii ka gudubtay in mar uu isku diyaarinayso inay dhakhtarad noqoto wuxuu ku dhahaa inuu ninkaas ku sii qabo ma aha waxaad u qalantaa nin wanaagsan inuu guursado isla markaas ay sheekaysanayeen midkan wuu daba socdo gaarigiisa ka dhex daawanayay isagoo xanaaqsan wuxuu qaadanaa go'aan aad halis oo ah labadooda inuu gaariga isla dardarsiiyo wax yar wuxuu sugayay intay ilaamiga soo wada galayaan maadaama uu wada qaldan ku socdo gaari kale isku dhaceen anigana ma tusi kari ugu dambeyn isaga meel halisa dhaawac ka soo gaaray sidoo kale lugtana wuu ka jabay halka labadan markii ay nasiib ku badbaadeen aysan ka qasnayn oo ay guur isku soo bandhiganayaan ugu dambeyn muuqaalku intaas oo ka ekaya hadda halkaas soo gaartay leegnoosa